بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توناك سنة لهانتي بداود يا صاحب يا هلكني وبرتان يوتيوب ككلن هاي وانيو أحمد رسوفي سود هذا صاحب يا القضاء وركنا تكون داود دونتان حيلي جنوحا كمذا دعذ الله يابله وكذا على تدقال كده وان دحمري عندما الصومالي قلبيد إليو بوليسكا يولي بكوحدر قصدا الشباب وسوتشي عندها ضدك شعب جاي الصوماليين جودهامبا taasi oo daawadayaal sidoo kale dhiirigelin u noqotay gabdho Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanka Soomaali galbeed kuwaas oo ilaa ay hadda sii wada arintaasi dhacdadaas ayaa ahayd markii gabar ka tirsan dadka ku dhaqan deegaanka Soomaali galbeed ay sheegtay inay nafteeda u horeyso mid ka mid ah ciidamada liyuga kuwaas oo markaasi dagaalka adag kula jiray kooxda argagixisada al-Shabaab gabadhii labaad ayaa iyaduna talaabadaasi qaaday daawadayaal iyo askari Soomaaliyeed oo arintaasi wax ka qoray ama dhacdadaasi wax ka qoray sidoo kale wararkan aad ku daawan doontaan daawadayaal madaxda ugu sarsareysay wadanka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe oo ay balaayo ka dhex taagan tahay waa kooxda Damujidiis si kala daaw dhahno iyo Aadan Madoobe oo isagu himilo qaran ka tirsanaa oo isfahan waa aad weyn oo ka dhex jiro iyo kooxihii kale mucaaradka ahaa iyadoo daawadayaal lagu hardamayo golaha wasiirada iyo sida loo kala qaadanayo qodobadaas oo warbixino dhameystirayeen idinka haynaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya oo xaalku jiq ku yahay isagoo daawadayaal sida xogo ay sheegayaan dhinacyo badan ee markaasi u jaakiray xiriirkiina markaasi joojiyay isla markaana ay isku diyaarinayaan iyaguna mucaarad kooxahaas ayaynu wax idinka carabaabi doonaa haddii Allah wada raali ka ahaado ka horse qodobadeena daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa maartay dibadda iyo Jarmalka iyo meelo maartaan in loo qaado tabarna aan la haynin muslimiinta ma maqlayso ee dhigteeda ku dhacay waxaan ka codsanaynaa gabadha walaasheena miskiinta inay noo saacideeyaan oo maartaan lambaraha shaashada loo saari doono ay arki doonaan ee ugu soo diraan sifa maartaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilmaheeda yaryarka ee carruurta gacanta ku haysata ay ku korsato in ugu khidmayso nabarka asagana maartaan idaabo ugu hesho waxaan ka codsanaynaa si naxariis leh بسم الله Soomaaliya wada salaamay daawadayaal fadlan qofkii muumin Sheekh Cabdul Qaadir wax ku sadaqaysanay waxna u diraya lambarka shaashada ku qoran hoose ee Kenyaanka ah xiriyaha qowtiga dhaabay ku sugan tahay magaceeda ugu hagaaji lambarkaasna in beesaan ugu dir qofkii kalena lambarka hormuudka magaalada Kismaayo ayuu yaalaa wixii awood u dira daawadayaal hadda kor ayaan caawinay lacag 7,000 kaliya waxa uu tiri weysay process dibadda u socda fadlan ka qayb waa tahay daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa inaad ka qayb qaadataan caawinta hooyada Soomaaliyeed aynu ku bilowno daawadayaal maalmahanba waxa dagaalo culus ay ka soconayeen deegaanka Soomaali galbeed xuduudihiisa gobolka Shabeelle iyo waliba Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Afdheer iyo sidoo kale gobolka Bakool inkastoo gudaha gobolka Afdheer ay u galeen kooxda argagixisada ee al-Shabaab wax ka badan 100 kilomitir sida uu sheegay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo wareysi ku bixiyay luqadda af-maxaariga ayaa daawadayaal waxay xoguhu sheegayaan wali in la sii bacaysanayo kooxo haraadi ka ahaa ee kooxdii ka dagaalantay gobolka Afdheer halka kooxdii kale ee ka dagaalantay nawaaxiga ee deegaano hoos yimaada degmada Feerfeerna la soo afjaray sida xogo dhameystiran ay warbaahinteena u sheegeen si kastoo ahaataba dagaalkaasi ayaa waxa ku dhintay markaasi rag aad u fara badan waxaana ku dhaawacmay sidoo kale xubno kale iyadoo dhinacyadii dagaalamay labadaba khasaare uu soo gaaray waa kooxda argagixisada ee al-Shabaab iyo ciidamada dowladda deegaanka Soomaali galbeed amaba markaasi Somali State haddaba iyadoo dhacdadaasi si weyn ay indhaha ugu hayeen shacbiga Soomaaliyeed ayaa waxa ka dhashay arrimo kale daawadayaal oo xiiso mudan kuwaasi oo markaasi mararka qaarkood aad is leedahay runtii waxa wanaagsan shacbiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan Somali Republic inay ku daydaan taasi oo ciidamada dhiirigelin u noqonaysa barbaarta Soomaaliyeed ee dhoomacda shafka u dhiganayay ayaa daawadayaal qaarkood ee markaasi halkaasi ku dhintay intii ay dagaalada iyo howlgal ku jireen halka qaar kalena ay dhaawacmeen laakiin waxa jirtay dhalinyar kale oo markaasi sawir laga soo qaaday iyagoo aan kuwaasi waxba soo gaarin iyagoo boor iyo ciid leh intii dagaaladu ay soconayeen maadaama deegaanada dagaaladu ay ka dhacayeen ay ahayd deegaano abaara waxa xusid mudan gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Muno Cabdi Abiib oo kamid ah gabdhaha ka soo jeeda deegaanka Soomaali galbeed in ay markaasi sheegtay inay nafteedu u hibeynayso mid kamid ah askartii dagaalka adag kula jiray kooxda argagixisada ee al-Shabaab taasi oo ay sheegtay inaysan wax shuruud ku xiran waa gabadhaasi waxay sheegtay Cabdiyare oo markaasi ahaa askarigan sawirkiisa idin muuqdo gabadhuna waadsan inaysan wax shuruud ku xiran oo si bilaa shuruud ay wiilkaasi markaasi diyaar u tahay inay hoy ula gasho iyadoo xitaa sheegtay haddii waxa iskala leeyahay inay diyaar u tahay inay ku gasho oo ay noqoto afadiisa labaad hase yeeshee si wanaag bilaaxaas ayuu noqday wiilka gabadhuna xiriir ayay wada sameeyeen iyo wiilkii iyo faamiladiiba sidoo kale madax ka tirsan kuwa dowladda deegaanka Soomaali galbeed ayaa sheegay in si free ah ay ku dhisayaan reerka haddaba gabar kale ayaa iyaduna arintaasi qofkii labaad noqotay iyadoo gabadha Munaha sheegtay inay codsanayso inay gabdhaha Soomaaliyeed ay ku daydaan
haddaba gaashaanle madar oo ah askari Soomaaliyeed oo markaasi Somali Republic ka howlgala ayaa waxa uu sheegay muddo 14 sanadood ah inuu markaasi uu askari ahaa gobolada dhexe iyo Puntland uu ka howlgalayay oo difaaca dadka Soomaaliyeed uu ku mashquulsanaa waligay maana arkin buu yiri gabar wax kale iska badaayay mahadsanid igu dhahda iskaba dhaaf inay nafta ii hibayso xataa shaah ima shubin mahadsanid ayaaba wax weyn ah ayuu yiri taasoo muujinaysa ciidamada Soomaaliyeed inay u baahan yihiin dhiirigelin aad u weyn shacabka Soomaaliyeedna ay u baahan yihiin inay ciidamada barbar istaagaan naftooda horeyaasha oo naftooda xabada u dhigaya dhinaca kale sawirkan waxa idin ka muuqdaa qaar kamid ah dadka Soomaaliyeed ee markaasi garab istaagay ciidamada Liuga oo kamid yahay Cali Yara Cali Farax Geylan Cabdirasaaq Teera markaasi Bakeyle iyo waliba wariyaal kale kuwaasi oo dhamaantood qaarkood ee markaasi deegaanka Soomaali galbeed ka soo jeedin oo Soomaaliyada kale ka soo jeeda laakiin garab istaagay dagaalka lagu jiray kooxaha argagixisada Al-Shabaab kooxda Mujahid ayaa siyaasadeynaysa daawadayaal dagaalkaas iyadoo daawadayaal dhinacyada dawladda deegaanka Soomaali galbeed laftigoodu ay sheegeen in dagaalkani uu gacmo shisheeyay iyo webiga Niil uu hoosta ku hayo horeyna u soo bixin macluumaadyo sheegay in ciidan 3,000 gaaraya halkaas lagu diyaariyay masaariduna ay garab siiyeen waxa jirtay hadal ka soo yeeray Mustafa Cagshar balse maanta uu mar kale dib ummadda Soomaaliyeed uga faahfaahiyay oo aan muuqaalada soo socday kula wadaagi doono taasoo ah inay rabaan inay gudaha u soo galaan qaar ka tirsan deegaamada Somali Republic si howlgalo ay uga qaadaan arrintaasi oo dadka siyaabo kala gedsan ay u dhigeen ayaa madaxweynaha Soomaali galbeed maanta si fiican uga hadlay isagoo markaasi dadka Soomaaliyeed u biyaaniyay hadalka iyo sidii uu la jeeday wararka dambe ayaad ku daawan doontaan dhinaca kale madaxda ugu sarsareysay Mujahid iyo Aadan Madoobe oo ah hogaamiye ka socday dhanka himilo qaran oo hogaamiyuhu taageersanaa waa Sheekh Shariif Sheekh Axmed laga adkaaday ayaa isku fahmilaa sida loo wajahayo sida xogtu ay sheegayso kuraasta golaha wasiirada kuwaasi oo maraya meeshii markaasi ugu dambeysay sida xoguhu aan ku helayno madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse ayaa waxa ay markaasi daawadayaal khaatiyaan ka taagan yihiin kuraasta oo kooban iyo dhinacyo kala gedisan oo raba qolo walba in gooni loo qanciyo ama koox walba in gooni loo qanciyo arintaasi oo aad ugu adkaatay ayay haddana saasoo tahay la daala dhacayeen kulankii maalinkii shalay ahaa ayuu dibajoog ka ahaa daawadayaal sida sawirada aanu idinku tusnay gudoomiyaha golaha shacbiga waxay sheegaysaa laakiin xogaha qaarkood inay hal wasiir ay ku qanciyeen gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ku andacoonaya dhammaan kuraasta Digil iyo Mirfle in asaga looga dambeeyo halka ra'iisul wasaare xamsena uu rabo in kuraasta beelaha daarood looga dambeeyo halka madaxweyne xasan sheekhna uu rabo kuraasta inta soo hartay in uu markaasi isagu markaasi uu noqdo ninka u doordooraya si kasta hataa mas'uuliyiinta ayaa isku fahmi waayay sida loo wajahayo sidoo kale muddada ayaa la dheeraatay iyadoo dhawaan uu codsaday ra'iisul wasaare Xamse Barre in 10 casho loogu daro markaasi inay mar kale ay soo markaasi kuraasta ay raadeen golaha wasiirada ama xukuumad in la soo dhiso in markaasi loogu daro 10 casho golaha baarlamaanka ayaa iyagu aad u daneynaya in qaar badan oo ka tirsan inay iska dhex arkaan kuraastan sidoo kale kooxdii markaasi himilo qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore Soomaaliya kumeel gaarka ayaa rabay in iska dhex arkaan Xasan Cali Khayr dhinaca ayuu raadinaya kooxda duljirka dhinaca ay rabaan waa la badan yahay daawadayaal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed kooxda UPD ama Mujahid oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha bay ka tirsan yihiin iyaguna kuraas bay rabaan si kastoo ay ahaataba kooxahan oo dhan waxay rabaan kuraasyo marka waxa la leeyahay kuraasta oo yar aawadood iyo sidoo kale kuraasta hiigsanayaan oo kursiga ka fiican yahay in markaasi ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku wareeray arintan xoguhu waxay tibaaxayaan in laga yaabo in dhinacyo badan ay albaabada ka xirtaan xataa Roble iyo tiimkiisa ayaa raadinaya kuraas daawadayaal waxaana haddaba xoguhu ay sheegayaan in markaasi kontaktiyada iyo xiriiryadii oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu jaray sidoo kale la kulanka xildhibaano aad u dalbanaya madaxweynaha ayaa iyagana daawadayaal lagu gacan sayray xubno iyagu filayay inay wasiiro noqdaan ayaa daaqada ka baxay waxaana daawadayaal 10 casho la qabsaday haatanba tagay maalmo lama soo oga inay xilligaasi ku soo dhameystiri doonaan iyo in kale oo ay waqti kale usii baahan doonaan si kastoo tahayba waxa markaasi wasiirada oo kooban iyo waliba dhinacyada raadinaya oo tirada ka badatay boqolaal ah ayaanan ahayn wax macquul ah xoguhuna waxay sheegayaan inay qaarkood isku diyaarinayaan inay mucaarad ku noqdaan dawladda marka ugu horeyso oo ay waayaan kuraasta dhinacyo kala gidsan ayaa wax kala raadinaya oo markaasi iyagu tugtug aad u roon leh waxayna qaarkood ku hanjabayaan haddii sida ay rabaan wax loo yeeli waayo inay karkarin doonaan muushino ka dhan ah madaxweynaha iyo waliba xukuumadaha
kuwaasi oo aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonaan hanjabaadahooda haddii markaasi lagu gacan seero in xilal loo magacaabo si kastoo ahaataba Damul Jadiid ayaa ku fashilantay ayaa la leeyahay soo dhisida xukuumad iyadoo ra'iisul wasaaraha xilli hore la magacaabay ilaa ay haddana aan laga gungaarin sidaad u aragtid daawadayaal qodobadaas dhanka hoose ayaan fikirkaaga ka codsanaynaa inaad nagula wadaagto qodobkaas ayaana ugu dambeeya warkeenu aad kala socoteen bartayna ku leenahay YouTube-ka